anigu maanta waxaan gelayaa 87 waxaanu siyaasadana galay markaan 9 jir ahaa Somali Youth League baa liigeen jiray meeshay ku shiraan 1946 bacdigeedana Afrika la dhaqaaq waxa ka dhashay gobernimo doon haddana waxaan noqday xisbigii u horeeyay ee NFD laga furo oo u halgamo Soomaalinimada wuxuu xisbigaas ku socday wixii ay dhigeen ururkii la oran jiray Somali Youth League oo ahaa shanta Soomaali in la soo keeno kaasan madax ka noqday dhibaatooyin badan baa ugu dhaceen ujeedadana waxay ahayd shanta Soomaali inay israacdo labadii Soomaali galbeed Soomaali Italian iyo Soomaali Ingiriis iyo Soomaali Ethiopia iyo Soomaali halkan